wararka aan ka helayno magaalada Garowe ee xarunta Puntland ayaa soo sheegaya in 48 saac kadib wali aan hal qodob oo isfaham laga gaarin shirar ay yeesheen madaxda Puntland iyo ra'iisul wasaare Roble Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland ayaa isku maray la saddex qodob oo ku saabsan doorashada Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ayaa Puntland ka dalbaday inay soo magacaabaan guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed kadibna ay Villa Soomaaliya xalliso tabashooyinka uu qabo maamulkaas halka madaxweyne Dani oo dalbaday in ilaa saddex qodob laga sameeyo aysan Puntland magacaabi doonin guddiga doorashada qodobadaas oo kala ah in Villa Soomaaliya ay fuliso heshiiskiisa afgaradka ah oo ay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ka gaareen arrinta gobolka Gado labo in gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya loo ogolaado in uu hogaamiyo dhismaha guddiyada doorashada ee gobolada waqooyi saddex in dawladda iyo maamul goboleedyada dib u eegis ku sameeyaan guddiyada doorashada oo ay ku jiraan shaqaale dawladeed ciidan iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo kuwaas oo Puntland qabto inay saddex ka noqon karin doorashada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa madaxda Puntland ka dalbaday in marka hore la ilaaliyo qodobadii lagu heshiiyay ee doorashada Soomaaliya isla markaana ee Puntland iyo Jubbaland soo magacaabaan guddiyada doorashada kadibna arrinta gobolka Gado shir gaar ah looga hadlo kaas oo ka dhici doona magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Roble ma u madax bannaan yahay heshiiska uu la galayo maamul goboleedyada si loo badbaadiyo doorashada Soomaaliya iyo xasiloonida dalka waxaa su'aashaasi aan weydiinay xildhibaan Maxamed Cali Caananuug oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka ra'iisul wasaaraha horta Maxamed Xuseen Roble muddo kooban oo hadda jooga asagii xukuumaddiisa waxaan rabnaa maadaama uu horta murashax ahayn roolka asaga uu leeyahay inuu qaato asagaa laga rabaa dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdaan fulay xantiisa la moogaa ra'iisul wasaaraha horta 60 maalmood la goobayay ma garanayna annaga 60 maalmood waxa loo goobayo fahmi weynay haddii nin marka asaga roolkiisa iyo maadaama shaqada maanta dadka u taallay shaqadiisu ay tahay haddii roolkiisa asaga uu qaato oo gacmihiisa aanan gadaal laga helin wax badan oo qaban karaa laakiin ma aaminsan nin asaga shaqada uu leeyahay u madax bannaan warqadaha asaga loo soo dhiibay fariin asaga loo soo dhiibay inuu gaarsiinayo aaminsan ay seediyada ma jirto kalsooni u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood oo hore u sheegay inuu uga baxay ballamo iyo heshiisyo kale oo hore u wada galeen ra'iisul wasaare Roble oo 60 cisho laga dhex raadinayo ummadda Soomaaliyeed waxaa furin ka raba heshiis doorasho oo saacado ka horeeyay magacaabistiisa waxayna dad badan ay qabaan inuusan haysan madax bannaani oo ku hogaamiyo doorashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Galmudug ayaa kula taliyay ra'iisul wasaaraha inuu qaato doorkiisa kaga aadan badbaadada xasiloonida Soomaaliya xisheen waa maasan tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa hal ninkii leeyahay oo seenta kaga fadhiyo hashaas markacda la yiraahdo ra'iisul wasaaraha waxaa la gudboon maadaama heshiiskan asaga uu ka horeeyay cidda ishaysa iyo qodobada la isku fahmi laayahana ay tahay isla heshiiskii la gaaray ay wada gaareen xubnaha dawladda goboleedyada dawladda federaalka qaybta ka iyo dawladda federaalka yacni in uu sameeyo door dhexdhexaadnimo ah isla heshiiskii la gaaray 17 September in uu yacni madaxda federaalka ee arrintan gadaal kaga fadhisa iyo xubnaha maamul goboleedyada inuu shir isugu yeero shirkaasna lagu turxaan bixiyo waxa heshiiskii ka qaldamay hadduusan tallaabadaas qaadin waxa arrintan seenta kaga fadhiya waa madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa marka ra'iisul wasaaruhu runtii waxay noqon doontaa sida la malaynayo ama bulshada Soomaaliyeed u aragto inuu hawsha socota ee dawladda dhexe ee wado inuu qayb ka yahay arrintaasna uu san ka gaari doonin ugu dambeyntii muddaxileedka baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka harsan 14 maalmood halka madaxweynaha ay u harsan tahay 52 maalmood ilaa haddana ma jirto wax dhaqdhaqaaq doorasho ah oo dalka ka socda